saddexdan qalad iska ilaali waqtiga ilmaha naaska nuujinaysa. Number 1 in ilmahaaga abiyo ku bilaawdid. Number 2 inaa maxallahay adiga hooyada waxa rabtid iska cuntid. Number 3 in calooshaada ay istaagto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi kusoo dhawaad janalkayga ana wayta Ciise guys. Maanta topic ka hadli doono wuxuu dabayaalaa topic ahay kunka maalmood nafaqada kunka maalmood ee nolosha ugu horeysa. Haddii aad soo fiirsan dib ugu noqo soo fiirsan aad muhiim u yahay. Waa basic nolosha hooyo haddaa rabtid inaad noqoto, aabba haddaa rabtid inaad noqotid, iyo maaragta daaba ilma haysatid oo aad muhiim kugu tahay. So maanta waxaa ka hadli doonaa 6 bilood ee nolosha ugu horeyso ilmaha markay adduunka imaadaan from day 1 to ilaa 6 bilood buuxinaya ilmaha nafaqada u baahan yahay xag u heli karaa. Hooyada laftirkeeda nafaqadeeda aad muhiim noogu tahay. maxaa ilmaha laga ilaalinaya oo waqtigaas la siin karin, maxaana la siinaya. waxaan rajeynayaa inaad videoga nala dhamaysatid, like garaysiin, share garaysiin, channelka haddaa ku cusub tahay subscribe noo saartid. maxaa dhacay ayaantan waan ka maqnaay, weliba toobigyadan caafimaadka weliba ilmaha aan focuska saari doonaa. So aad muhiim u tahay in aan ugu dhiirigelisiin. maxaa dhacay youtube marka ayaan laga maqan yahay hoos ugu geynaa dadka inay arkaan way adag tahay. So u faa'iiday dad badan si ajir uga heshid. haddaan ku bilaabo nuujinta naaska, hooyada ilmaha naaska nuujinayso waa waxa ugu muhiimsan oo ilmaha markuu dhashaba afka loogu qabto waa caanaha hooyada. caanaha hooyada mise naaska faa'iidada ilmaha u leeyihiin waxaa ka mid ah naaska wuxuu ka kooban yahay nafaqooyin badan. dhammaan nafaqooyinkii oo ilmaha u baahnay naaskaas ilaahay ugu soo aruuriyay. waa mucjiso soo maaha. caanaha naaska ilmaha waxay ka caawinayaan difaaciisa jirkeena kor u qaadaan, inuu ka helo omega 3 maskaxdiisa, murqihiisa, jirkiisa, difaaciisa, everything inuu dhiso uu ka caawinaya naaska caanaha hooyada. So maadaama naaska caanihiisa nafaqo buuxdo ee tahay oo ilmihii helay nafaqo buuxdo naaska caanaha hooyada ka helayo, waxaa waqtigaan la siin karin in laga ilaaliyo ee tahay biyo. ilmahaaga u baahna caano oo mise gasacadeysan oo kuwa booraha la dhaho mise lo-da mise whatever caano banaanka ka imaado xoolo ma u baahna. caanaha hooyada ilmaha ku filan. hooyooyinka qaarkood nasiib xumo jaanis inaynu helinaa laga yaabaa inay caanaha naaskeeda siiso sababa ogood caafimaad mise ha noqoto in naaskeedaba caano yeelan waayo. wax kastaa dhici kara soo maaha. soo saas darteeda waxaa laga yaabaa in waqtigaas oo kale caanayaal loogu talagalay ilmaha jiro sida formula milk in hooyada ay siiso. caanahaas inta aad tilaawada qaadin dhakhtarkaaga kala tasho. waxaa ka mamnuuca waqtigan in ilmahaaga siisid cabitaanada maaragtay sweet drinks oo sida maxaa la dhahay cabitaanada la dhuuqo waxa soo qaqastay ilmaha ha siin. sonkorta ha siin. haba barin ilmaha waxa sonkor waqtigaas u bartid maba jirtabo. ha siinin cunto caadi ha u bilaabin. weliba cunto adag ka ilaali. ugu dadaal ilmahaas naaska maadaama uu nafaqo badan leeyahay inaa naaska si joogto ah ilmahaaga u siisid. hooyo adigana maxaa muhiim ah marka. maxaa dhacay ilmaha nafaqada meeshuu ka helaya adiga waayo. cuntooyinkii waqtiga loo bilaabi doono waan ka hadlaynaa topic kale noqonaya. hooyada ilmaha nuujinaysa naaska aad muhiim u tahay inay hesho nafaqo dhameystiran, ayadana cunto isku dheeli tiran, dietkeeda ay ka fikirto cuntada ay cunayso. waqtigan hooyooyin badan wado qaldan qaataan. haddii soo dhasho markaas waxay ku leedahay gabar waxay u tagaysaa wax khibrad ah caafimaadka u lahayn mise nin biraha bis qaaday jiimka shaqulkiisa yahay oo caafimaadka wax shaqul ku lahayn. kadib markaasay leedahay inaa iscaataya rabaa. waqtigan stresska ku haysto maxay tahay oo la degdegaysid si natural ah caafimaad ah miisaankaagan u dhimi kartaa. weliba sir meeshaan rabaa inaa uga faa'iideyso hooyooyinka idiin sheego, laakiin videoga dhammaadkiisa insha Allah ka dhigi doonaa. so waqtigan waa inaad dietkaaga ka fikirtaa, cunto isku balance garaysan, nafaqooyinka jirkaaga u baahan yahay dhan aad ka helaysid. maxaa dhacay ilmahaaga caano fiican oo nadiif ah oo nafaqo leh si uu adiga kaaga helo cunto fiican cun. so biyahana aad iyo aad muhiim kugu yihiin. maalintii inaa biyo ilaa 8 glass cabtid. biyo fiican cab mar walba oo ilmaha waliba naas nuujisid biyo cab aad muhiim u tahay.
cuntooyinka marka aad u baahan tahay aad cuni kartid oo naaskaaga caanaha soo gelinayo oo energy ku siinayo oo maxaa la dhahay caafimaadka calooshaadana u fiican maskaxdaada u fiican ilmahana beri calool xanuun ka qaadayn wax dhibaateynayo ku keenayo maxaa la dhahay cuntooyin allergic iyo ilmaha inuu ku dhaco early ku sababayo hooyada marmarka imaan kartaa adee hadii calooshaada qasan tahay adee haddii maaragtay aad dadaaleyn waxaa rabti iska cunaysid ilmaha waa saameynaya so calooshaada ka fikir horta waxa koowaad oo ka fikiraysa waa inay noqotaa caafimaadka calooshaada cuntadaada waxa ugu badan ka koobnaan doonto fiber waa inay noqotaa calooshii ku istaagan iska ilaali calool istaagba makuu fiicno so fiberka xagee ka heli kartaa qudaarta karso maxaa la dhahay shiido saarabta oo cun waxaa sameyn kartaa kale koostada bocorada isku soo yayaaro baamiyo ku darso whatever maxaa la dhahay quinoa qamadi misiraha kala duwan waxaasoo dhan maaragtay suub ka sameyso karso suugo ka sameyso hada soomaalida maasha allah waxyaabaha aadka uga helo waxaa waa dadka dartaan aaday u fahmeen lifestyleka in la bedeli karo si natural oo maalin walba cunto boorna la cunayso suuqi ee taala dartan waxaa ii sheega kale gabdho oo maxaa la dhahay aan ka caawiyo diet-kii sheegayeen Soomaali in bocorka maaragtay sida baastada loogu soo sameeyo loo soo jeejaro wax kasta diyaar looga soo dhigo dadka loo fududeeyo loo siska isku daray arkay so wadankii adeertaan wax kasta way yaalaan adduunka kalena jaanisyo badan dadka haystaan soo ku dadaal in cuntid qudaar fiican fruitka maaragtay sonkortiisa ay maxaa la dhahay high glycemic index ka ahayn oo sonkortiisa ay fiican tahay cun waxaa kaloo ayadan ku dadaashaa cuntooyinka proteinka ku badan yahay sida digaaga hilibka ukunta caanaha jiiska waxyaabahaas dhan cun maxaa dhacay protein badan markaa heshid jirkaaga helo ilmahaagina korimo fiican u helayaa maxaa dhacay naaskaaga caanihiisa faa'iido u leedahay marka aad cunto fiican cuntid cuntada kale aad iyo aad muhiim u ah waxaa waaye oo koriso maskaxdaada iyo maskaxda ilmahaba waxyaabaha omega 3 laga helo malayga isku day week 2 maalin inaa cuntid aad muhiim kuugu yahay sisintoo kale shiidan kartaa olive oilko kale cuntada dusha uga darso like maxaa la dhahay flaxseed iyo chia seed si waxyaabahaas oo kale maaragtay ku darso boorashka markaa sameysanaysid waxyaana kaa caabinay calooshaadana inay ku istaagin in maxaa la dhahay ka heshidna omega 3 so hooyo caafimaadkaaga ku dadaal toobagiyadii kan koreeyana waa uga soo hadlay hooyooyinka cuntooyinka cuni karaan waqtiga uurka leeyihiin hadeertaana markuu ilmaha banaanka imaado already weli xiriir adan ka dhexeeyo maxaa dhacay naaskaaga iyo jaqooya so hooyada waxa ka mamnuuc ah ayadana maxay tahay cuntooyinka ka mamnuuc ah ama waxyaabaha inaa cunto ka mamnuuc ah waxa kamid ah macaanka sonkorta maxaa la dhahay junk foodka maxaa la dhahay waxyaabaha saliidaha lagu shiishiilo waxyaabahaas dhan shaax badan inaa caabtid hooyooyinka qaarkood waxay ku dhahaan shaax aad u jeclahay so shaax yaa la karinayaa sonkor badanaa lagu darayaa caanaa lagu darayaa like ma u baahnid wax caanaha naaskaaga maaragtay kor u qaadi karo isticmaal hada moringa tea oo kala sameysan kartaa research sameeya jirto lagu sameeyay dooliga oo la arkaayo in maxaa la dhahay naaska caano soo galayo hooyada waqtiga caanaheedana alshaan caano badan oo productionka oo saaidaya caano badan soo daynayo naaska so moringa oo kale waa cabi kartaa calooshaada ku socodsiinaya blood sugar jirkaaga hoos u dhigaya faa'iidooyin badan leedahay all waxa ku jiro amino acidska maxaa la dhahay protein badan leedahay so moringa wax fiican waaye oo kale waa herbal fiican herbaladaas ka ilaalinaysidna iyagana aan kuu sheego laakiin insha Allah topic ku xigo aan ka dhigi doonaa waxyaabaha herbalka ah oo iska ilaalinaysid mise geedaha dhirta ah iska ilaalinaysid oo ku fiicneen marka ilmaha naaska nuujinaysid mise marka uurka leedahayba avokaadada kale aad u fiican tahay ku dadaal avokaadada maaragtay mar walba hooyada hadii uur leedahay iyo hadii maaragtay uur lehen iyo hadii uur isku diyaarinayso iyo hadii naas nuujinayso iyo caadi anaga dhan asbin aadam waana fiican tahay maxaa dhacay waxa ku jiro dufan fiican ka helaysaa soo jirkeena dufanka u baahan yahay dufanka aad muhiim u yahay hore waa soo hadlay insha Allah marna gooni oo soo hadlay doonaa
so muhiimadda waxaa waaye marka hooyo caafimaad qabto ilmo caafimaad qabtee soo saartaa. So guys, waxaan rajeynayaa insha Allah topican intaan kusoo gabagabeynayo. waxaa ugu talagalay 6 bilood ugu horeysa ilmaha. insha Allah topic xigo muxuu noqon doonaa. idinka horta kii kasii horeeyay commentiska waxaa rabay in dadka markay fiirsadaan ay reflect gareeyaan, ay dhahaan su'aalo soo weydiiyaan, ay dhahaan waxaan maxaa dhahay hooyooyinka maxaa dhacay. hooyooyinka ilmaha muhiim waaye ilmaha. So waxaan rajeynayaa in aad xiisaysiin, inuu xiise idin yeesho. maxaa dhacay ma arkin dad ilmaha ka hadlaayo focus ka saarayo. saas darteeda waxaan rajeynayaa idinka xataa idinka arka interestiga. maxaa dhacay hooyaa tahay wax ka baro. So guys, waa ku mahadsantihiin ilaa intaan hadaan soo gaarteen. waxaan rajeynayaa insha Allah inaa like gareysiin, mar labaad xasuusin, la sii qaybsantiin asxaabtiina kale, faamilka. yaa gabadhaada oo mar dhow dhaleysa hadee jirto la sii qaybsatid, casharo siisiin. So insha Allah topic xigane wuxuu sii noqon doonaa from 6 bilood ilaa wixii ka weyn. maxaa dhacay 1 maalmood ee nolosha ugu horeyso aad iyo aad ay muhiim noogu tahay. Yes, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.